بسم الله waxaan baranaynaa insha allahu tacaala aayadan samigeeda. aayadan waxay leedahay waa aayadda 71 ee suurat lkaafir. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفرحون iyo tamraxuun isku aad ayay ku jiraan, marka midna fa'a ku jirto waa tafraxuun, midna miin ayaa ku jirto waa tamraxuun. sideen usoo kala hormarinaa marka? dadka qaar waa isku dhex qaldaan. waxaa soo hormarine kow waxaad u naqanaya alfabeetada alifka. alif wax male, baa hooskaale, taa korka lamale, ilaa yaa iyo hooska la maaley. siday isugu xigto u noqo haddii aad xasuusato. dhinaca alifka waxaa soo xiga fa, oo fa korkaale, qaab korka lamale, kaaf wax male, laam wax male, miim wax male. saas ayaadan malaynaa. waqti hore ayaa igu dambeysay haddaanan qaldanayn. muga waxaa soo horeysa fa soo horeysa, oo dhinaca maxaa la dhihi jiray alifka waxaa soo xigta fa, miimna waxay xigtaa dhinaca dambo. shanta xaraf ee ugu dambeeyo waxaa weliba ay ku jirtaa, waxaa la dhihi jiray faqa kalamana wahaya, faqa kalamana wahaya. waa shanta xaraf, lixda xaraf ee ugu dambeysa ayay ku jirtaa miinka. marka waxaa soo hormarine fa'da soo hormari, oo waxaad leedahay ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون haddii la yidhaha udkhuluu abwaaba jahannama ku xagto. meel kalena waa arkaya qur-aanka oo fadkhuluu ay ku jirto, marka iyadoo tirkeedana waa samiyeys ku tahay. marka si aynaysa kaa qaldoomin, fadkhuluu waa meel kale, midaana waa udkhuluu. marka waxaad leedahay aayad kumaba ka dhigaysidba, waa ka boodee, oo waxaad leedahay ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ندخلوا نطنو لكردبي ديل لغو ريب أم بدال لغو ريب ستربت واديكسي sidaas ayaad dhehe. oo udkhuluu dhan waa u gooyiheyba. kadibna fadkhuluu da waxay jirtaa ta'amuro jirtaan oo maleyna haddii aanan qaldanayn gooni u goobaado. laakiin midaan udkhuluudan ulajeedkayga ma ahayn, ee waxaa lama sheegina sheekan hee ee ku keenay muga. saas isugu xir. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون دخلوا أبواب جهنم.